maalin wanaagsan magacaygu waa Haarun Macruuf halkani waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America stuudiyaha Washington. nasiib wanaag maanta waxaa stuudiyaha nagu soo booqday xiriiryaha guud ee qaranka Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ka yimid magaalada Muqdisho magaaladan Washington ku sugan. waxaan wax ka weydiin doonaa ujeedada safarkiisa iyo su'aalo ku saabsan la dagaalanka musuqmaasuqa Soomaaliya iyo waliba xaaladda garsoorka Soomaaliya. mudane Axmed Cali Daahir soo dhawow. ما سند هارون أديك إيو بحدا إذا عدى فيه إيدابا سيدا وناكسن أو عد سيرفيس كادو مدة سنة سنة وتكون حسنتين. واي مركو هرب بلادن كويديو مقالة واشنطن وفد إنتاج بعد كنت معدين وجدد سفركم حيد. مقالة وحا جوجا وفدي هو جامين يو قدوميها محكمة السرة دولة الفدرال الصومالية دكتور باشي يعني أو حراليها جود iyo la taliyaha arrimaha sharciga ee xafiiska xiriiryaha guud waxaan u nimid mashruuc ama program ay maalgelinayso ama casuumaad aan ka helnay World Bank oo ah GDL week wax la yiraahdo ama muxuu ahaa law and muxuu ahaa garsoorka iyo shuruucda iyo developmentiga horumarinta sida loo horumarin karo marka waxaa ka soo qayb galaya ilaa 600 oo ergo oo caalamka kala timid dhammaantoodna u badan madaxda garsoorka ee dalalka oo dhan ama gudoomiyaal maxkamad sare ha noqdaan ama wasiir cadaalad ha noqdaan ama ha noqdaan muxuu ahaa xiriiryaal guud oo attorney generals iyo wakiilo kale oo metelaya hay'adaha waxa jira garsoorka Soomaaliya saddex laamood bay dawlad ka kooban tahay hay'adda fulinta hay'adda sharci dejinta iyo garsoorka xaaladda garsoorku waa sidee ka bacdina waxaan ku weydiin doonaa kiisaskii musuqmaasuqa ee toddobaadkan dhacay xaaladda garsoorka ee Soomaaliya runtii waxaan oran karaa wuxuu ku jiraa hadda marxalad oo transition yani uu ka baxayo marxaladii hore oo u gudbayo runtii marxalad casri ah sidaad ogtahay garsoorkeenu wuxuu ahaa garsoor ku salaysan nidaamka unitary systemka ama dawladda dhexe ee awoodda leedahay hadda garsoorkeenu wuxuu noqon doonaa sida wadanku uu qaatay garsoor federaal ayuu noqon doonaa maadaama wadankii uu noqday wadan federaal waxaa jira marka gap ayaa jira oo ah shuruucdii iyo nidaamkii loo baahnaa si garsoorku uu garsoor federaal u noqdo oo aan horey u jirin marka processka hadda uu marayo garsoorkeenu waxa weeye runtii marxalad kala guur ah oo uu ka guurayo garsoorkii ku dhisnaa central union muxuu ahaa federal aan ahayn ku dhisnaa central government ayaa wuxuu u guurayaa federal system government marka waxa uu u baahan yahay marka marxaladda in laga gudbiyo marxaladaas wuxuu u baahan yahay in la helo runtii golo adeeg garsoor oo garsoorka federaalka maamula shuruucdiisa dejiya u dooda garsoorayaasha iyo xeeraalyaashaba hayr gareeya ama iyagu muxuu ahaa shaqaaleysiiya imtixaama shaqada ka qaada inuu helo garsoorku wuxuu kale u baahan yahay in la helo wax la yiraahdo justice model ama nidaamka garsoor ee uu dalku yeelanayo oo ku salaysan qaab federaal ah isagana meel fiican buu marayaa hadda oo gabagaba ah oo aan rajeynayno nidaamka markii la isla qaato oo la isla dhameeyo inuu noqon doono garsoorku marka mid heer dawlad goboleed iyo mid federaal ah arrinta ku saabsan waxaad soo qaaday golaha adeega garsoorka dhowr jeer baa laga hadlay in la sameeyo golahaas muhiim buuna u yahay waxyaabo badan oo dabcan idin qabsoomi laha sanado badan ma aha dawladdan kaliya dawladii hore way ku guuldareystay inay sameeyaan maxay tahay sababtu sideedaba wax marka uu dhismaayo uu iska dhib badan yahay marka marxalad laga guurayo marxalad kale la aadayana way iska dhib badan tahay iyada naftarkeedu waxay u baahan tahay caqabad fara badan baa jira caqabadka ugu badan oo marka ay golaha adeeg garsoorka uu la kulmay waxa kamid ah markii hore ma jirin ba nidaamkan golaha adeeg garsoor ah oo dastuurka ku xusan oo dhisan marka ugu horeysa waa in sharcigiisa la dhisiyaa oo sharcigii golahaas lagu dhisi lahaa la gaaraa nasiib wanaag runtii waa lagu guuleystay in sharcigii golaha adeeg garsoorka lagu dhisi lahaa in la baas gareeyo oo la ansixiyo ilaa golaha wasiirada iyo baarlamaanku ay ansixiyaan marka wixii ka dambeeya waxa loo baahnaa in xubnihii la dhameystiro oo xubnihii golaha adeeg garsoorka noqon lahaa la dhiso xubnahaas oo laba qayboodba ka kooban kuwo xafiis ahaan ku imaanaya oo ilaa 4 xubnood ah iyo xubno kale oo ku imaanaya magacaabid ama soo xulid ku imaanaya
iyada naftirkeeda caqabaadka runtii jira waxaa ka mid ah xubnaha xafiis ahaanta ku imaanaya oo aan dhammaystirnayn xafiisyadii oo aan dhisnayn oon jirin for example waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha maxkamadda dastuuriga ayaa golaha adeeg garsoorka xubinka maxkamadda dastuuriga ma jirto waxaa ka mid ah xubin waxaa ka ah gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka marka maxaa muhiimad loo siin waayahay idan garsoorka in la dhiso sida maxkamadda dastuuriga oo kale isagana ma jiro dowladdii hore waxaan ogahay inay isku day badan ay samaysay xukuumaddii hore ilaa 2 jeer in baarlamaanka loo gudbiyey oo 7dii markaa la heli karin maxaa yeelay labadan kale maba dhisnaynba laakiin 7dii dhisnaa maadaama ay yihiin aqlabiyad go'aamo gaari karta ilaa 7 xubnood 9 xubnood haddii 7 la haysto waxay tahay aqlabiyad weyn oo runtii go'aamo kasta gaari karta in loo arko sidaas baahida jirtana loo arko oo la dhiso ayay ahayd nasiib darro 2 jeerba waxaa soo celiyay golaha baarlamaanka ayaa laga soo celiyay markii ugu dambeysayna qoraalkii ka soo baxay wuxuu ahaa in la yiri hal soo dhameystiro caqabad way runtii maxaa yeelay xubnaha qaarkood maba dhismi karaan haddaan golaha la dhisin oo waxaa ka mid ah maxkamadda dastuuriga dastuurka iyo sharciguba wuxuu tilmaamayaa in golahani ay soo jeediyaan oo soo dhisaan golihii dhisi lahaana waxaa ka mid ah xubin marka waa wixii ingiliisku dhihi jiray marka sidee sharci ku noqonaysaa marka di golahan uusan dhismayn magacaabista garsoorayaasha iyo maxaan ku yiraahdaa say sharci waxaa loo adeegsanayaa xeerka nidaamka garsoorka ee hadda jira maadaama aan la baabi'in xeerka nidaamka garsoorka ayaa siinaya madaxweynaha inuu magacaabi karo gudoomiye maxkamad sare iyo inuu awooddaas siinaya oo xeerka haddaad akhrisay nidaamka garsoorka ee hadda noo yaala oo ilaa golahan adeega la dhiso isagaas unbaa lagu shaqeynaya ama xeer kale oo nidaam garsoor ilaa la ansixiyo kii hore unbaa jiraya marka xeerka nidaamka garsoorka ee hore ayaa noo yaala midka ayaana awoodda siinaya inuu madaxweynuhu soo magacaabi karo la magacaabi karo ilaa inta golihii adeeg garsoorka maxaa yeelay waddanku garsoor buu u baahan yahay sharcigu wuxuu ilaaliyaa ama aad uu uga hortagaa vacuum inuu yimaado sideedaba oo firaaq inuu yimaado firaaqaas ayaa ka weyn marka ayaa ka muhiimsan in la buuxiyo maxaa yeelay garsoor la'aan ayuu waddanku noqonayaa bacdama golihiina uusan dhisnayn lana haddii laga celiyo magacaabidna laga celiyo vacuum waxaa imaanaya marka oo firaaq ah firaaqaas ayaa ka dhibaato badan in la magacaabo dhinaca kale haddii siyaasiyiintu mar walba ay magacaabaan garsoorayaasha dhibaata ka iman karta Soomaaliya sababtoo ah garsoorka iyo siyaasadda inay kala madax banaanaadaan soo dastuurku saas ma dhigayo dabcan horta siyaasiyiin kale ma magacaabaan garsoorayaasha madaxweynaha ayaa magacaaba madaxweynuhuna 3 awoodood oo jirta ee dalka ayuu madax ku siiyahay oo executive-ka iyo baarlamaanka iyo muxuu ahaa iyo judiciary-gaba qofka kor ka maamulaya oo dastuurka inay ku dhaqmaan ilaalinaya waa asaga way marka ma aha lama oran karo horta executive-kiiba faraha kula jira garsoorka ama golihii wasiiradii iyo ma aha kuwaasi wax awooda kuma leh waa madaxweynaha oo kaliya waxa magacaabida noocaas samayn kara ama sameeyayba ama samayn kara taasna waxa keenaysa sharcigii golaha adeega garsoorka sharcigii la oran jiray muxuu ahaa sheegay xeerka nidaamka garsoorka oo waddanku uu lahaa ayaa awoodihiisa qaab ka mid ah siinaya inuu madaxweynuhu samayn karo magacaabidaas iyo isagoo oo madaxweynuhu haddana ilaalinaya bacdama uu dastuurkii qasab ay tahay oo 3 dowladood 3 hay-adood oo dawliga ahaa laga maarmaanka ahaa ay tahay mid ka mid ah ay maqan tahay inuu buuxiyo firaaqaas caadiyan laakiin waa inuu garsoorka madax banaanaado of course independence of judiciary wax la yiraahdo ama madax banaanida garsoorku waa sideedaba waa qadiyad muqadas ah waxay marka uga madax banaan yihiin xilligan ma ka madax banaan yihiin maxaa yeelay wuxuu u madax banaan yahay garsooruhu go'aanka uu gaaray isaga u madax banaanida garsoorka ee lagu sheegayo runtii waxa waa dhabta ah garsoorahaasi galka hor yaala inuu u madax banaan yahay oo go'aanka cadaaladda oo asagu arka uu ku gaari karo kaas madaxweynena kuma faragelin karo ra'iisul wasaare kuma faragelin karo baarlamaanna kuma faragelin karaan wasiirna kuma faragelin xataa qofka ka sareeyo garsoorka uga sareeya xataa uu faragelin karo marka madax banaanida go'aan gaarista way jirtaa ayaga ayaana u madax banaan inay go'aanka gaaraan ama in maamul ahaan u madax banaanaadaan waa mid u baahan in golaha adeeg garsoorka loo dhiso oo miisaaniyadiisa iyo maamulkiisa iyo dalacaadihiisa iyo anshax marintooda iyo waxaas oo dhan ayagu ay qaabilaan
ama madax banaanida garsoorka ee dhinaca garsooridda ah way u madax bannaan yihiin. way haddaan ka hadalno toddobaad maalmaha soo dhaafnay waxaa la xukumay dhowr qof baa loo xukumay musuqmaasuq, shaqaale dekedda, shaqaale ka tirsan wasaaradda arrimaha bini'aadminimada, shaqaale ka tirsan wasaaradda maaliyadda. In markii ugu horeysay la xukumo dad musuqmaasuq lagu helay, maxay uga dhigan tahay garsoorka Soomaaliya? runtii anigu waxaan u arkaa inay tahay horta hawshii garsoorka hawl ka mida waay, wax cusub oo ma aha oo garsoorku maalin walba ayuu xukumo ridaa, xeraalintu maalin walba ayay eedo samaysaa, booliska iyo hantidhowrku mar walba ayay soo sameeyaan muxuu ahaa ii sheegay baaris, waa wax routiinka ka mid ah. laakiin waxa hadda cusub oo ku soo kordhay waxa weeye in mas'uuliyiin xilal qaran hay in sharciga lagu horkeeno musuqmaasuq ay sameeyeen. taas waxay garsoorka iyo hay-adahaba uga dhigan tahay horumar weyn oo la gaaray, runtii muujinaysana kobaca iyo awoodeysiga hay-adaha garsoorku ay sameynayaan iyo hay-adaha baaristaba, ama waxa la isku yiraahdo muxuu ahaa rule of law-ga, ama waxa la isku yiraahdaba Englishka lagu yiraahdo muxuu ahaa ii sheeg hay-adaha oo dhaqangelinta sharciga. guul weyn bay u tahay runtii garsoorka. waa garta kiis waxaa jiray ku saabsanaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mukhtaar Mahad Daawud oo idinka laftigiinu aad ku eedayseen xatooyo xoolo dadweyne, laakiin inkastoo kiiskiisu kiisaskan la mid ahaa xukun ma dhicin, maxkamadna ma dhicin intaan ka warhayo. maxaa ku dhacay kiiskaas? annagu haddii aan nahay xafiiska xeraalinta dhammaan wax alla wixii laga maarmaanka u ahaa kiiskaas, ama eediisi ha noqoto ama ha noqoto baaritaankiisii gungaarkiisii waanu gudbinay. maxkamadda ayaa laga rabaa inay muddayn unbuuna sugayaa, laakiin lagama noqonin. maya wax kiis laga noqday ma jiro ilaa iyo hadda, sabab looga noqdaana maba jirtaba. waa kiis maxkamaduhu iyagaa og shaqadooda, waqtiyadooda iyagaa og, timingkooda iyagaa og, hadba waqtiga ku habboon inay muddeeyaan bacdama uusan xirnayn oo qof hadda bannaanka jooga uu yahay oo bannaan joog ku jooga. kuwa xiran ayaa mudnaanta la siinaya mar walba, oo qofka xiran muwaadinka xiran ayaa la hormarinaya mar walba. marka laakiin arrintaasi waxay hortaalaa maxkamadda insha Allah. kiisaska intaanan ka bixin maxkamadda mawduuc kale u gudbin, waxaa jiray kiis ku saabsanaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur, siyaasiga sanadkii hore kiiskiisa inta la soo qabtay kabacdi xabsiga la geeyay, markii dambeyn baa lagu sii daayay. xaguu ku dambeeyay kiiskaas? kiiskaas waa kiis isaga nafsadiisu xafiiska uu baaristiisu sameeyey, laakiin aan xafiiska dhaafin weli, oo aan gaarin ama maxkamad ama meel kale aan loo gudbinin gaarin waaye. yani horgeymihii hore un marka laga reebo, kiisku waa marna horgeyn iyo waxyaabahaas oo qofka iyo xalaaleyn iyo in baaristiisa la sameeyo iyo waxa, marna waa markuu dhammaado oo gunaanad u gaaro. waxaan ogahay in arrimo badan oo kiiska ka mid ah xal laga gaaray oo ay ka mid tahay dadkii dhintay ama muxuu ahaa iyo kiiskaas. marka wuxuu u egyahay kiis danta guud ee cadaaladda mar walba la eegaya. danta guud ee cadaaladda markii la eego inaan kiiskaas horey loo dhaqaajinaynin ayuu egyahay. marka maxay tahay sababtu waa danta guud ee cadaaladda in la eego. qaanuun qodobo ka mid ah shuruucda qaanuunka ayaana banaynaya in danta guud mar walba waxaa laga horumarinaya danta guud ee cadaaladda. wax maa lagu waayay? kuma oranayo waxbaa lagu waayay iyo waxbaa lagu helay, laakiin kiiska ma la laalay. so far kiiskaasi xafiiska uu xiray isagoo eegaya danta guud ee cadaaladda. waa garta ma la dhihi karaa marka waxa marka hore lagu soo qabtayna arrin siyaasad ku labantay ahayd, haddana go-aan siyaasadeed unbaa uga baxay? lama oran karo. kiisas dil loo haysto ayaa maalin walba ay xalinaa oo marka laga eego maslaxada caamka ah. qof dad dilay ayaa xal laga gaaraa oo aan maxkamad la geynin, kadib markii la eego danta guud ee cadaaladda iyo masaalixda guud ee qaranka. laakiin cadaaladdu sharciga ay taqaanaa, marka wixii in sharciga ayay ku qoran tahay qodobka naftirkiisu. waa gar sharciga ku qoran tahay. haddaad eegtid xeerkeenna, haddaad eegtid qawaaniinteenna, waxay ku eran tahay mar walba waxaa saldhig u ah maslaxada guud ee dalka. qodobkee dhigaya in maxaan ku idhahdaa kiiskii saa cuslaada ama xasaasiya? anaga kiis noo xasaasiya, kiis culus iyo kiis noo xasaasiya midna ma jiro. kiis walba waa xasaasi, maxaa yeelay muwaadin Soomaaliyeed ayuu xorriyadiisa taabanaya, muwaadin Soomaaliyeed ayuu naftiisa taabanaya, muwaadin Soomaaliyeed ayuu taabanaya maalkiisa. marka
case aan xasaasi noo ahayn ma jiro laakiin sida lagu xalliyo way badan tahay maalin walba cases badan oo iyadoo la eegayo danta guud ee cadaaladda la xalliyaa jira way jirta arrinta ku saabsan musuqmaasuqa dad baa maalintii dhaweyd markii xukunada la riday waxay dhaheen dadkan la xukumay waa dad jagooyin hoose ka haya dawladda garsoorku wuxuu u baahan yahay inuu intaa in ka badan qabto oo musuqmaasuqa xafiisyo waaweyn lagu daro waxaa jiray doorashadii aan soo dhaafno kale waxaa eedeymo ayaa jiray in musuqmaasuq uu jiro xildhibaanada iyo codadka la iibsado hadda laftigeeda eedeymo noocaas ayaa jira maxaad u eegi laadihiin xafiisyada sare sideedaba xafiisyadani waxay ku shaqeeyaan case la baaray oo la dhammaystiray inay maxkamadda aan geyno maxkamadduna waxay ku shaqeysaa wax loo soo gudbiyey inay go-aan ka gaarta iyadana waxaa laga rabaa marka hay-adaha baarista sida hantidhowrka sida muxuu ahaa ii sheegay turbatariyada ama hay-adda ilaalinta canshuuraha sida muxuu ahaa CID-da ama dambi baarayaalka ama criminal investigation departmentiga sida immigrationka kiisaska inay ayagu soo dhisaan oo soo baaraan kadibna xafiiska u soo gudbiyaan wixii soo gudbiyaan anagu degdeg ayaan waan hubinaa awood baan u leenahay inaan maaragtay saxno wixii ka khaldan iyo wixii ku sax kadibna aan maxkamadda u gudbino marka wixii naloo soo gudbiyey sharcigaan waafajinayno marka dhibaatadan codbixintu codadkan la iibsanayo dhinacyo kala duwan baa ka hadlay haddana gobollo kala duwan bay doorashadu ka dhici doontaa hadda waxaa taagan midii koonfur galbeed waxaa ku xigta puntland waxaa kusii xigta jubbaland kabacdina doorashadii qarankaa loo gudbaya marka arrintan ku saabsan xildhibaanada iyo codadka la gadanayo waa arrin aada u culus gudaha iyo wadanka intaba waa laga hadlay marka xafiiskaaga maadaama xiraaliyii guud ee qaranka waxay u baahan tahay in la caddeeyo anagu waxaan ballan qaadaynaa wax kasta oo caddayn rasmi ah loo helo inaan sharciga horgeyno laakiin wax la yiri iyo wax habeen madow sariir hoosteed la isu geliyey iyo waxaas anagu kuma shaqeyno waxaan ku shaqeynaa wax cad oo la qabtay oo la proof garan karo oo la caddeyn karo maxkamadda horteeda ma aaminsantahay inay jiraan falalkan taasi waa qof walba sidoo asaga uu arko aragtidiisa waay laakiin anigu ilaa iyo hadda case noocaas ah oo naloo soo gudbiyey oo caddeymihiisa le nalooma keenin markii naloo keenana sharcigaan horgeynayna laakiin xafiis aad ka waabanayso cid aan uga heebeysanayno iyo cid aan uga gabanayno haddii uu galo raad musuqmaasuq oo lagu caddeeyo maxkamadda inaan horgeyno aan diyaar u nahay annagu qodob ah waxaan rabay inaan ku weydiiyo dad waxaa jira dembiyo kala duwan loo soo xiro ama niisa ha soo qabato ama booliisku ha soo qabtaan ama laamo kale oo amniga ha soo qabtaan laakiin qofka la xiro xabsiga lagu iloobo muddo xabsiga aan la keenin 6 bilood ugu yaraan dad xiran baa naloo sheegay maxaa dadka kiisaskooda loo dhammaystiri lahayo loo baari lahayo ama maxkamad loo gudbin lahayahay loo xukumi lahayo ama loo sii dayn lahayo horta baarista iyo gabagabaynteeda xabsi u gudbinta kala laba way hay-adaha baarista qofku markuu joogo baaris buu joogaa marka loo gudbinayo xabsigana waa mar baaristiisii dhammaatay oo xabsiga loo gudbinayo garsuga uu noqonayo marxaladda oo baaristu ka baxaya wuxuu gelayaa marxalad uu garsuga noqonayo muddo ayuu sharcigu baneeyaa mid walba oo uu leeyahay muddadaas waa in qofkaasi baaristiisa lagu gabagabeeyaa ama muddo waa in maxkamad lagu horgeeyaa oo garsugaa ka baxay qaanuunka uu tilmaamaya inta badan inta aan anigu ogahay inta badan qofka la soo xiro muddo xalaaleyn degdega ayaa la qaataa oo sharcigu u banaynayo ama nabasgudda ha soo xirto ama ha soo xirto hay-adaha kale ee baaristu ha soo xiraan muddo xalaaleyntaasi qofku waa lagu hayn karaa inta uu garsoora loo geynaya garsoora u ogolaanaya ayadoo baaristii socota haddana uu weydiis haday ku yaraato muddadii haddana uu weydiisanaya waxay ku xiran tahay nature-ka case-ka ayay ku xiran tahay kiisaska khuseeya intee lahayn karaa qofka si kiiskiisa loo soo kiisaska wax iska furan baa ma furna case-ku hadda wuxuu ku xiran yahay waa maxay oo dhigay sharci wuxuu ku xiran yahay caseska for example ka soo qaad argagixisada oo kale walow aanan sharciga argagixisada aanan baas garan waa case balaaran oo u baahan in muddo baaris loo helo la mid ma aha tuug calal xaday oo lagu soo qabtay oo markii maxkamad la geenayo oo kale la mid ma waa case u baahan xataa mararka qaar inaan u dalbano dalal kale si ay
cadeymo qaarkood noola xaqiijiyaan waa cases u baahan in electronically ama technology ahaan wax loo cadeeyo oo teleefanadooda iyo dib dambe ilaa iyo sanado dib loo baaro u baahan oo farsamo anaga naga weyn ama baaris anaga naga weyn oo aan la kaashano wadamo kale ama saaxiibo ah ama hay'ado kale kiiska noocaas baaritaankiisu uu dheeranaya laakiin mar walba waxay weydiistaan waxa laga yaabaa inuu gaaro mararka qaar 3 bilood mararka qaar 6 bilood laakiin mar walba waxa la horgeeyaa garsoore waxaana la siiyaa muddo baarista lagu dhameeyo laakiin dad falal tuuga ah iyo xatooyo ama qof ay dakhreen ama dhaawaceen looma hayo sanad iyo wax gaar ma waa dhamaan kartaa maxkamadaha ama xabsiyada tag haddii xataa muddo dhaaf yar yimaado garsooraha awood u leh wuu sii daynaya oo markiiba maalin walba aan abiil ka qaadanaa oo xiraalinta xataa lama ogeysi shardi ma xataa garsooruhu inuu ogeysiiyo oo muddadaa loogu talagalay dunuubta qaar waa 90 maalmood dunuubta qaar waa 60 maalmood dunuubta qaar waa 45 maalmood qaanuunka xeerka habka ciqaabta ayaa tilmaamaya garsoorahana awood siinaya haddii muddo dhaafkaas uu qofkaas xiran yahay in la sii daayo marka inta badan dacwooyinka sahlan oo dhan ma gaaraan muddadaa iyo wax u dhow toona waa iska dacaayad iyo dadaan xog haynin laakiin kiisaska khuseeya amniga qaranka kiisaska khuseeya argagixisada baaritaankooda inuu muddo naga qaato ilaa imisa kiis baa jiro noocaas oo way badan yihiin ma qiyaas karo way badan yihiin way fara badan yihiin laakiin badanaana waa maxkamadooda waa la dedejiyaa inta badan although ay kiisaska argagixisada inta badan ay maxkamadda ciidamadu ay la dhili karayaan waxaa jirta oo kale in qof lagu xukumay dembi culus loo xukumay dil oo kale laakiin uu xiran yahay muddo aad u dheer qofkii maxkamadii kumaysan xukumin xabsi dheer uu iska xiran yahay dilla wuu ku xukumay sidee garsoorku muxuu ka leeyahay arrintaas qofku laba ciqaabood buu marayaa soo ma waa aragtidaada waay qof dil lagu xukumay oo weli nool oon la dilin waa loo naxariistay baan anagu leenahay laba ciqaabood ma marin waayo waxaa suurtagal ah lacala allah yuxdisu bacda dalika amr waxaa suurtagal ah in xal kale oo qofkan xabsigaba uga baxo ama uu ku badbaado inuu ilaahay u soo sahlaa suurtagal ah adiga ma control kartid tan labaad qofku waqtiga uu dhimanayo waa waqti ilaahay u qadaray si kastood ugu tala gasho adiga ama dil ku xukun ama ku dilin maalintii ilaahay u qadaray un baa horta dilka la geenaya laakiin anagu waxaan u aragnaa runtii dilka ku xukun marka ma baaris baa ku socota maxaa loo hayaa oo waa la fuliyaa in badan oo kamid ah in badan oo kamidana lama fulinin because of waxaa laga yaabaa in si uun arrintooda mar dambe xal loo helo waxaa laga yaabaa qof uu dilay dil baa lagu xukumay waxaa laga yaabaa inuu ehelkii qofkii ay diyadii siiyaan oo islaamnimo u noqdaan oo isagu iska cafiyo oo wax badan baa dhici kara adiga marka ma dhihi kartid qofkan maxaa u dili weysay dilka ku xukunkiisu waxa weeye aan kaaga baxo dilka ku xukunkiisu waxa waaye cadaaladii loo baahnaa ma la mariyay qofkan yes waa la soo qabtay sharciga la hor keenay eed baa loo sameeyey maxkamad baa la geeyey wixii uu mudnaa baa lagu qaaday ama fulintiisu waa wax gaar waadna ogtahay maxkamada xabsiyada Mareykanka dadka road dadka ku xukuman 20-30 sano ayay ku jiraan marka kadib ama lagu fuliyaa ama qofkii abiil bu hadana xaq u leeyahay laakiin sharcigeedu ma saas u dhigay dambi buu qaadanaya waqti buu qaadan karaa lagu xukumay qaarkood bilad 7 gudahood baa lagu toogtay it depends sida loo arko case-kiisa ku xiran tahay qofkaas ninka 500 qof ninkii qofka dilay 500 qof qofka dilay oo muwaadiniin oo Soomaaliyeed oo argixis ah oo dilay ama sababay in dhimato wuxuu mudan yahay dilkiisa in loo dejiyo way su'aasheedu marka waxa weeye wax siman oo dadku u wada sameeyeen oo iska wada dhaxarki karaan oo mudaysan oo dhihi kara saalaan qofka dil marka lagu xukumo sida Mareykanku kale 5 sano ama 6 sano kadib la dili karaa taas dabcan sidaan qiyaasaya ma jirto laakiin haddii qofka marka dil ba lagu xukumo sida aad sheegtay kiiskiisa la sii baarayo isbedeli karto miyaan kiiskii hore dilka aysan ahayn in la joojiyo la yiraahdo kiiskaaga dib baa loo baaraya inta ka horeysan xabsiga ku sii jiray sida hadda maya qofka wuxuu leeyahay xaq u leeyahay qofka dil lagu xukumo xaq u leeyahay inuu abiil qaato abiilkiisa waxa laga yaabaa inuu socoto sanado haddana markii abiilku hadduu ku raaco haddana waxa laga yaabaa xaq wuxuu leeyahay Supreme Court-ka inuu aado oo kiiskiisa uu geeyo maxkamadda sare uu sii geeyo sanado kale qaadan karta
dana waxaa laga yaabaa revision ama revision waxa la yiraahdo dib u eegis inuu xaq u yeesho kiiskiisa marka qaanuunkii baaba waqtigaas qofka siin kara way waqtigu naga dhamaanaya waxaan su'aashan rabay inaan ku weydiiyo waxa weeye dib u habayn reform baad ka hadlayseen maalmahan garsoorka lagu sameynayo muddo soo jiitay shir kala duwan baa la qabtay waad ka hadashay dhibaatada ka taagan sameynta guddiga garsoorka laakiin reformka laga hadlayo waa maxay muxuu yahay actually reformku waxa weeye in la dhiso hay'adka yani anaga hadda xafiiska xeeraalinta kale ka tarjumi karaa xafiiska xeeraalinta reformku wuxuu ka bilaawday maalinkan imid aniga ilaa maantana weli wuu socdaa in capacity-ga dadka la dhiso in xafiiskii la awoodeeyo in aqoontooda la dhiso dadka waxaan ka shaqeynaa in la gaarsiiyo nidaamka casriga ee adduunka sideeba ay muxuu ahaa ay sheeg ula jaan qaadi karaan dunuub cusub oo caalamka ku soo korodhay oo ama shuruucdeennaba xataa ayna qabin ama aqoonteeda ayna xeraalayaasheeda iyo looyaradeeda u lahayn baa jira oo cyber attack uu ka mid yahay oo uu ka mid yahay money laundering uu ka mid yahay oo pirates ay ka mid yihiin oo burcadku wacaas oo dhan waxay u baahan yihiin dadka in loo bisleeyo oo la baro oo xeraalayaashii si u baari lahaayeen si u dhisi lahaayeen garsoorayaashii saas oo kale qalabeen bay u baahan yihiin miisaaniyad bay u baahan yihiin xarumaha ku shaqeeyaan wadan burburay oo burbur ka soo kabanayo way reformku marka ma aha oo kaliya in qof la eriyo qof la bedel reformku waxa waay wax salka laga soo dhisayo oo isugu jira infrastructure oo isugu jira shaqaale oo isugu jira miisaaniyad oo isugu jira capacity building qofkii aqoontiisa la dhiso oo isugu jira qawaaniinteena naftirkeena in lagu sameeyo reform sida hadda xeerka ciqaabta oo kale review iyo ugu socdo dib u eegid ugu socdo for the last 2 years oo aan rajeynayno in mar dhow uu isaga oo la jaan qaadi kara xeerarka ciqaabta caalamka oo kale la soo bixiyo marka reformka aan sheegin waa reform wajiyo badan leh oo runtii comprehensive waxaan la yiraahdo oo dhinacyo badan leh maalinkan imaanayay typewriting ayaa waxa lagu garaacay maantana case management systemka waa electronic aad baad mahadsantahay xeeryaalaha guud ee qaranka Axmed Cali Daahir aad mudan mahadsantahay barakallahu kaasi waxa uu ahaa xeeryaalaha guud ee qaranka Soomaaliyeed Axmed Cali Daahir oo nagu soo booqday stuudiyaha VOA ee magaalada Washington waa anigoo Haarun Macruufa mahadsanidin